maxaad ka ogtahay dadka gacan bidixlayaasha ah ama gacanta bidix wax ku qora? kow, gacan bidixlayaashu waxa ay dunida ka yihiin 12 boqolkiiba ama boqolkii qofood oo aragtaba 12 ka mid ah waa ay guran yihiin ama waa ay bidixan yihiin hadba sida aad u taqaano. labo, aqoon-yahanada bidixlayaasha ah ee caanka waxaa ka mid ah Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin iyo Benjamin Franklin. saddex, dadka bidixani waxa ay isticmaalaan dhinaca bidix ee maskaxdooda halka midiglayaashuna ay isticmaalaan dhinaca bidix ee maskaxdooda. afar, daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in dadka bidixani ay ku karti badan yihiin wacyigelinta, xisaabta iyo dhismaha halka ay midiglayaashuna af ahaan u karti badan yihiin. shan, dadka bidixlayaasha ahi waxa ay ku dhiban yihiin shayada u samaysan dhanka midig sida maqaska, keyboardka kombiyuutarka, baabuurta qaar iyo waxyaabo kale oo la mid ah. lix, bidixlayaashu waa dad degan, aamusnaan badan, waxa ay u muuqdaan kuwo caraysan oo laga baqo, balse haddii aad isfahantiin waa dad aan laga xiisa dhigin. toddobo, 8 madaxweyne ee ugu dambeeyay dalka Mareykanka 4 ayaa gacan bidixlayaal ahaa ama gurana. 8, waxyaabaha ay ku fiican yihiin gacan bidixlayaasha waxaa ka mid ah farshaxanka, shiishka, dabaasha iyo keenida fikrado macquul ah. 9, waa dad ku xeel dheer arrimaha basaaska iyo sirdoonka, badanaana heer sare ayay ka gaaraan. 10, cilmi baarisyo kale ayaa muujinaya ilmaha yari marka uu baranayo habka wax loo cuno inuu ku bilaabo gacanta bidix. 11, dadkani waxa ay aad ugu nugul yihiin madax xanuunka kiisa dhajafka ah. 12, ma ogtahay in 13 Agosto ay tahay maalinta gacan bidixlayaasha adduunka, Left Hands Day, waxaana la soo bilaabay in la xuso sanadkii 1996. daba daawade aragtida ka dhiibo, like saar muuqaalka, sidoo kalena asxaabtaada u share garee YouTube-keena Walaalka Show inaad booqataan ayaan idinka codsanaynaa. mahadsanidin.